kusoo dhawow kubadda cagta Tube iyo warbixin ku saabsan kulamadii la ciyaaray tartanka Champions League guud ahaan iyo waxyaabihii xaqiiqooyinka ahaa ee kulamadaas laga diiwaan galiyay. xalay tartanka Yurub kulamo xiiso badan ayaa la ciyaaray iyadoo ciyaarta ugu weyn dhexmartay Liverpool iyo kooxda kubadda cagta ee Paris Saint-Germain kulankaas oo ka dhacay garoonka Anfield. Reds oo laba gool la hormartay ayaa labadaba laga bareejiyay balse Roberto Firmino oo ciyaartan kursiga keedka ku soo bilowday badal lagu keenay ayaa dhaliyay goolka guusha ee kooxda uu hogaamiyo tababare Johan Klopp daqiiqadii 92 ee ciyaarta markii lagu daray 3 daqiiqo 90 daqiiqo ciyaarta markay dhamaatay. Hadaba maxaa laga diiwaan galiyay kulankan? Lionel Messi ayaa noqday ciyaaryahankii ugu horeeyay taariikhda Champions League 8 leey dhaliya waa in ka badan inta ay sameeyeen xidigaha kale. Mauro Icardi 29 gool ayuu dhaliyay tartamada oo dhan xil ciyaareedkii la soo dhaafay. Mana jirin kubad uu ka toogtay meel ka baxsan diilinta. Waa goolkiisii ugu horeeyay abi tartanka Champions League iyo shoodkii ugu horeeyay on target uu sameeyo xidiga lagu magacaabo Mauro Icardi. Roberto Firmino ayaa hadda dhaliyay 12 gool Champions League isagoo Liverpool ah. Steven Gerrard kaliya ciyaartooyda taariikhda Liverpool soo martay marka laga hadlo Steven Gerrard ayaa ka badan. Van Dijk ayaa abuuray fursado badan waana laba kulankii PSG ay xalay la ciyaareen waa in ka badan inta uu isku dayay Neymar marka la fiiriyo fursadahaasi. Kylian Mbappe ayaa ku lug lahaaday 14 gool oo Champions League 15 kulan oo ku soo bilowday 11 gool ayuu dhaliyay 3 caawinaadna waa uu sameeyay. Ma jirin ciyaaryahan garoonka ku jiray kaas oo taakalada James Milner uu sameeyay oo kale sameeyay waana 5 taakal Milner oo xalay si fiican u adkeeyay Neymar. saddexda ciyaaryahan ee weerarka ciyaara Liverpool waxay gaareen hadda 100 gool tartamada oo dhan. Mohamed Salah oo 46 gool dhaliyay, Roberto Firmino oo 30 iyo Sadio Mane oo 24 gool dhaliyay. Kylian Mbappe wuxuu noqday daayarkii ugu horeeyay garoonka Anfield gool ku soo dhaliyay tartanka Champions League waana 19 sano jir 270 iyo 3 maalmood. Lionel Messi ayaa record sameeyay 64 kulan 63 gool ma aha wax fudud marka la fiiriyo heerka tartanka Champions League heerkiisa gruubyada. James Milner ayaa wada dhaliyay dhammaan 10 gool ee ugu dambeysay kooxda Liverpool oo u tuuray ciyaaryahanka Daniel Sturridge ayaa kulankiisa ugu horeeyay abi Champions League ku soo bilowday isagoo 30 daqiiqo ku qaadatay inuu gool dhaliyo. Roberto Firmino ayaana lagu bedelay kaas oo kursiga keedka ka soo muuqday. Mauricio Pochettino kooxdiisa ayaa laga adkaaday 3 kulan oo xiriir tartamada oo dhan markii ugu horeysay isagoo Tottenham tababaro ah. Watford 2 gool kaga badisay, Liverpool 2 gool kaga badiyeen, Inter Milan 2 gool. Dhammaan waa isku natiijo. Barcelona ciyaartooyda goolasha ugu badan u dhalisay sanadkan waa Lionel Messi oo 7 ah, Ousmane Dembele oo 5 ah, Luis Suarez oo 3 gool dhaliyay. Ousmane Dembele ayaa ku lug lahaaday 34 kulan oo uu kooxdiisa koowaad u ciyaaray marka la fiiriyo 18 gool ayuu dhaliyay 16 goolna waa uu caawiyay. sidoo kale 31 gool ayuu ku lug lahaaday lugta bidix marka uu ku ciyaarayo xidigan. labadii gool ee ugu dambeysay Christian Eriksen uu ka dhaliyay tartanka Champions League wuxuu ka kala dhaliyay Juventus iyo kooxda kubadda cagta Inter Milan. goolasha ugu badan hal xil ciyaaray Champions League la dhaliyo PSG ayaa 25 gool dhalisay 2012 halka Liverpool dhalisay 23 gool 2012 marka la fiiriyo heerka gruubyada tartanka. labadaas kooxood ayaana xalay is wajahay. waad ku mahadsan tahay daawashada warbixintan. fadlan subscribe leh kubadda cagta Tube, like saar muuqaalkan, share gareey lana wadaag asxaabtaada. mahadsanid.